asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha sharafta mudan ee hawada nagala socdow waxaynu ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan arrimihii somalilan iyo imaaraadka amba saldhigga military ee laga siiyey magaalada berbera imaaraadka iyo siday caalamku uga hadleen. tv-ga waxaa la yidhaahdaa al-xiwaar baa la yidhaahdaa, wuxuu ku yaalaa wadamadan carabta mid ka mid a amba wadanka la yidhaahdo lubnaan ayuu ku yaalaa. wuxuu si weyn u qaadaa dhigay amba uu ka hadlay arrimahan faa'iidada ay leedahay iyo waxyaabaha ka iman kara iyo geeska afrika mustaqbalkiisa dambe. ninkan soomaaliga ah ee khabiirka ah ayaa ka hadlaya, isaguna aragtidiisa ka hadlaya, isagoo sheegay somalilan inaanay maaragtay ay geli karin heshiis, balse ninka wariyey uu sheegay uu soo hordhigay qodob kamid a qodobadii 2012 lagu heshiiyey somalilan iyo wadahadaladii soomaaliya sheekh shariif iyo somalilan madaxweyne axmed siiraayo ay ku kala saxeexdeen wadanka ingiriiska. oo qodobka 6aad oo kamid ahaa uu sheegayay in ay somalilan heshiis kasta oo dooda ah ay la geli karto una madax bannaan tahay, taana ay saxeexeedi dhacay. waa runta ayuu yidhi ninka ka hadlaya khabiirka ee ka hadlaya arrimahan, balse wuxuu yidhi arrimahaasi waa runta oo way jiraan oo waa wax heshiis oo dhacay buu ahaa, waana la kala saxeexday oo way geli karaan. laakiin waxa fiican buu yidhi in mantaqada laga fikiro iyo mustaqbalkeeda, isagoo arrimahaasi ka hadlaya oo yacni yara diidan inaanay suuragal ahayn. wuxuu kaloo wariyuu weydiiyey somalilan maadaamay heshiisyo caalamiga geli karta ma laga yaaba in imaaraadku aqoonsado. wuxuu yidhi haa, oo annagu waxaanu aaminsannahay inayba tahay aqoonsi caalamiga oo aqoonsanayo dowladda imaaraadku ay aqoonsanayso somalilan. arrinkaasina waa arrin aanu ka hortagi doono oonu doonayno in aanu ka hortagno insha allah mustaqbalka soo socda. haddaba waxaa si weyn uga hadlay iyaguna telefishinada cnnta, aljazeera, maxaan ku dhahdaa SBS ta la yidhaahdo, maxaan ku dhahdaa ABC ta la yidhaahdo, iyo joornaalada caalamka oo dhan ayaa si weyn uga hadlay arrimahan. haddaba laba siyaabood baa loo kala qaadi karaa. haddaba somalilan ma faa'iida ugu jirta mise khasaaro? waxaan aaminsanaya anigu waxaa ugu jirta faa'iido, waayaaba mid dhaqaale iyo mid maxaan ku dhahdaa ganacsi iyo mid horumar oo maaragtay geeska afrikaba wada gaadha.